bismillaahi raxmaani raxiim duhur wanaagsan dhegaystayaal halkani waa warbaahinta Afrika ee magaalada Muqdisho ku soo dhawaada warka duhur qodobada aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah ra'iisul wasaaraha cusub oo xilka la wareegaya iyadoo dood adag ay taagan tahay dagaal khasaare geysta oo dhex maray ciidanka dawladda iyo kuwa Kenya galmudug oo soo saartay digniino ku socda dadka ku nool magaalada Hobyo ee gobolka Mudug koonfur galbeed iyo Puntland oo heshiis cusub ku gaaray magaalada Baydhabo ee caasimadda ku meel gaarka ee dawlad goboleedka koonfur galbeed al-shabaab oo laba ruux ku toogtay fagaaro ku yaala gobolka Hiiraan madaxweynaha Jabuuti oo ka hadlay heshiiskii doorashooyinka Soomaaliya akhbaraadka caalamka aad ku dhagaysan doontaan warkeennana waxaa ka mid ah 25 qof oo ku dhimatay shil diyaaradeed oo ka dhacay dalka Ukraine adeera kuwa ay baraanka ku taagan yahay awow aamus waxaan dhageysanayaa war ka baxaya Radio Afrika adeer idaacada Afrika kula dhageysta ka fur adeer albaabka ha dhageysta warka idaacada adeer kale idaacada la dhageysta ismaqal wanaagsan dhageystayaal waa duhurnimo sabti taariikhdu ku beegan tahay 26 bisha 9aad sanada 2020 intaad maqasheen waxa ahaayeen qodobadii ugu waaweynaa warkan duhur imikayaatan u diyaar garooba dhageysiga iyaga oo inta ka faahfaahsan dagaal khasaare kala duwan dhaliyay una dhaxeeyay ciidanka dawladda Soomaaliya iyo kuwa Kenya ayaa waxa uu ka dhacay degmada Balad Xawe ee gobolka Gado sida warbixinta warkan uu ku dhameystirayo wariyaheena Mubaarak Cabdalla wararka naga soo gaaraya gobolka Gado gaar ahaan degmada Balad Xawe ayaa waxa ay sheegayaan in israasaaseen kooban ay dhexmartay ciidanka Kenya iyo kuwa Soomaaliya ee ku sugan xadbeenaadka Soomaaliya ay la wadaagto Kenya iska horimaadka ayaa yimid kadib markii ciidamada Kenya ay rasaas ku fureen dad shacab ah oo ku banaanbaxayay xuduud beenaadka u dhaxeeya Balad Xawe iyo Mandheera ciidanka xooga ayaa rasaas uga jawaabay talaabada ay qaadeen ciidanka Kenya waxaana labada dhinac dhexmartay israasaaseen kooban saraakiisha labada dhinac ayaa ku guuleystay hakinta iska horimaadka waxaana la sheegay in hadda xaaladdu ay tahay mid degan waxaa jiro khasaare dhaawac ah oo soo kala gaaray labada dhinac lamana oga inta uu gaarsiisan yahay khasaarahaas al-shabaab ayaa goob fagaara oo ku yaala gobolka Hiiraan waxa ay ku toogteen nin ay sheegeen in uu ahaa jaasuus u shaqeynayay dawladda Soomaaliya sida ay noo xaqiijinayaan ila dadka deegaanka al-shabaab maxkamadda ay leeyihiin ayaa gobolka Hiiraan waxa ay ku toogatay laba nin kuwaas oo u kala shaqeynayay dawladda Soomaaliya iyo howlgalka nabad ilaalinta ee midowga Afrika ninka ugu horeeya al-shabaab ay toogteen oo lagu magacaabo Axmed ayaa laga soo qabtay degmada Jallaqsi ee gobolka Hiiraan waxayna sheegeen in si gaar ah ugu shaqeynayay ciidanka dawladda Soomaaliya ciidanka Jabuuti ee ku sugan degmada Jallaqsi halka ninka kalena ay ku eedeeyeen inuu u shaqeynayay ciidanka dawladda Soomaaliya ee ku sugan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan Axmed ayay sheegeen in laba mar oo hore al-shabaab ay cafiyeen balse markaan ay noqotay markiisii saddexaad waxayna ku toogteen deegaanka lagu magacaabo Boqable ee gobolka Hiiraan al-shabaab ayaa sidaan oo kale dhowr jeer waxa ay toogteen oo xukunno dilal isugu jiro ku fuliyeen dad ay ku eedeeyeen inay u shaqeynayeen dawladda Soomaaliya iyo sidoo kale dawladaha dariska la ah iyo maamul goboleedyada dalka maamulka galmudug ayaa digniin soo saaray taas oo ku socotay dadka ku nool magaalada Hobyo ee gobolka Mudug sida warbixinta warkan uu ku dhameystirayo wariyaheena Mubaarak Cabdalle wasiirka wasaaradda amniga dawlad goboleedka galmudug Axmed Macalin Fiqih ayaa uga digay shacabka ku nool magaalada Hobyo ee gobolka Mudug iyo dadka ka imaanaya deegaanada kale ee dhulka ka cabirta degmadaas iyagoon marin habraaca sharciga ah ee dhulbixinta Axmed Fiqih ayaa sheegay in dhawaan ay bilaabi doonaan howlgallo looga hortagayo dadka kacaya dhulboobka tallaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono cidii lagu qabto falkaas waxa uu sheegay in hay'adaha dawladeed ee ku shaqada leh dhulbixinta haatanba ay degmada joogaan lana xoojin doono si ay mas'uuliyadooda u gutaan balse aan la aqbali karin in dhul baaxad leh uu hal qof xareysto iyadoon la qoondeen dhulkii xarumaha danta guud laga hirgelin lahaa iyo jidadka degmada Hobyo oo dhawaan la filayo in laga bilaabo dhismaha deked ay yeelato galmudug ayaa waxay arintaasi ka abuurtay in magaaladu noqon doonto xarun ganacsi waxaana dadku ay wadaan inay dhul ka cabirtaan ama ay ka gataan madaxweynaha dalka Jabuuti ayaa soo dhaweeyay heshiiskii doorashooyinka ay wada gaareen dawladda Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada sida warbixinta warkan uu ku dhameystiray wariyaheena Cabdullaahi Maxamed Cabduqaadir madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele ayaa ka hadlay shirka 17 bisha Sebtembar madaxweyne Farmaajo madaxweynayaasha maamul goboleedyada iyo gudoomiyaha Banaadir ay ka gaareen doorashada dalka ee sanadka 2021 madaxweyne
iraahday madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele oo shalay khudbad ka jeediyay meertada 75aad ee golaha guud ee qaramada midoobay ayaa bogaadiyay heshiiskii ay madaxda ka gaareen doorashada isagoona u mahadceliyay madaxdii ka qayb gashay shirkii Muqdisho sidoo kale madaxweynaha Jabuuti ayaa heshiiska doorashada ku tilmaamay mid muujinaya in Soomaaliya ay qaaday dhabaha jihaysan ee nabadda iyo xasiloonida isla markaana si wada jir ah heshiis loo gaaray dhinaca kale madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele ayaa ka hadlay magacaabista ra'iisul wasaaraha cusub ee xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble isagoona markaa soo dhabeeyay magacaabista Roble oo kalsoonidiisa markaa ama kalsoonida la siiyay si uu markaa u soo dhiso xukuumad cusub isagoona beesha caalamka ugu baaqay taageerista Soomaaliya maamulada Puntland iyo Koonfur Galbeed ayaa kala saxiixday heshiis cusub madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni oo ka qayb galaya xaflad soo dhaweyn ah oo isaga iyo wafdigiisa loogu sameeyay xarunta madaxtooyada Koonfur Galbeed ee magaalada Baydhabo Saciid Deni ayaa maalmihii la soo dhaafay ku sugnaa Baydhabo waxa uu kulamo kala duwan la qaadanay qaybaha kala duwan ee bulshada ee deegaanada Koonfur Galbeed hadal jeedinta madaxweynuhu uu sameeyay ayaa waxa uu sheegay in Puntland iyo Koonfur Galbeed ku heshiiyeen horumarinta iskaashiga dhinacyada amniga ganacsiga iyo waliba isdhexgalka bulshada iyo sidoo kale dowlad dhiska iyadoo Puntland wixii aqoon dowladnimo iyo sidoo kaleba shuruuca ka taageeri doonto Koonfur Galbeed sida uu hadalku dhigay waxa ay sidoo kale ku heshiiyeen ilaalinta amniga dadka ka soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed ee ku sugan deegaanada maamulka Puntland oo hore loogu dhibaateeyay dhowr mar madaxweyne Deni ayaa uga mahadceliyay madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen iyo dhammaan dadka reer Koonfur Galbeed dowlad iyo waliba shacab sida wanaagsan ee isaga iyo wafdigiisa ugu soo dhaweeyeen deegaanada maamulka Koonfur Galbeed halka warkaasi duurdhagaystayaal uu kaga imaanay warbaahinta Afrika ee magaalada Muqdisho imika aadsan akhbaraadka caalamka 25 qof ayaa ku dhimatay shil diyaaradeed oo ka dhacay dalka Ukraine diyaarad kuwa xamuulka qaadaha oo ay leeyihiin ciidamada cirka dalka Ukraine ayaa ku burburtay meel u dhow magaalada bari ee dalkaas goor dambe oo jimcihii ahayd halkaas oo ay ku dhinteen 25 ruux dowladda ayaa sheegtay in 2 qof laga soo badbaadiyay ay ku sugan yihiin goobta caafimaad iyagoona xaaladooda ay liidato waqtigan burburkan ayaa waxa uu dhacay markii diyaaradan ay isku dayday in ay si degdeg ah u degto sida laga soo xigtay adeega gurmadka degdega ah ee dowladda Ukraine 27 qof ee saarnaa waxay ahaayeen shaqaalihii iyo sidoo kale aqoon-yahano ka socday jaamacad u dhow ciidanka cirka ugu yaraan 10 diyaaradood oo ay leedahay shirkadan ayaa shilal gashay tan iyo sanadkii 2017 sida laga soo xigtay xafiiska fadhigiisu uu yahay Geneva diyaaradan nooceeda iyo noocyo kaleba oo ay ku jiraan 2018 dhageystayaal intaasi waxaa ku dhan warkii duur oo kala socoteen warbaahinta Afrika ee magaalada Muqdisho waad ku maasantiin la socodkii la saanqaadka warkeena duhur